suuqyada kaamira lagu rakibay moolka kaamira lagu rakibay meel kasta oo marto waxa ku rakaban kaamiradaas ayaa soo saaraya waxa dambi sameeyso dhan taas marka qof walba ka baqaya walaakiin haway kaamirada ilaahay ma uu baqaweeday ilaahay muuna ku arkin laakiin waxaan ogeyn ila adiga jirkaaga kaamira ay ku jirto la yaadu waxa ku hadlayso dhan ku arsaaqada ilaahay inta cunaan ilaahay badib waxa sinayeen ilaahay awre ma caabudeen makhluuqayga sameeyeen bay caabudayeen ilaahay kama cabsooneen makhluuqay ka cabsoonayeen nidaamka ilaahay ma ilaalineen nidaamka bilaadka ilaalineen sharciga ilaahay ma ilaalineen qawayga sameeyeen sharci waarkan ay raadeen sharciga ilaal wariya tan ilaahay maxuu leeyahay wadadigu aadaad ilaahay waa kuwaas wal ciyaad billah muqaalka duu ku soo gaaro waa muslimka u shargare si uu faa'iideystaan laha in marka ugu dambayso un kelmad dhahlay dhaho laakiin haddii la isoo kiciyey waan tuuranayaa dhowr xabaan meesha ka tuuranayaa marka hore ilaahay aan ka cabsano nabiga maxamed aan ku salina calayhi salaatu wasalaam dadka haddii cabsida ilaahay ay quluubtooda ku jirto ama ay ku xisaabtamaan fi dunya wal aakhira way ku guuleystaan madluumiin inaan nahay baan sheeganaynaa oo nala dulmay haddii ilaahay inuu noo gargaaro baan rajaynaynaa ninka daalimka ducadiisa waa la aqbalaa baan intaa kadib anu saddex qodob baan ku soo koobayaa hadalku badnay waxba kuma leh inkastoo uu fiicnaan lahaa waxa iga dhex guuxaya inaan codkayga bogto laakiin waa soo gaabinayaa hadduu hadalku yacnaha maaragtay in la gaabiyo ku fiican hal qodob waxaan leeyahay dowladda madaxweynaha sharafta leh ee dalka xukuuma mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa hal qodob baan leeyahay hal qodobna waxaan leeyahay dadka aan codkooda ku hadlahayo ee jubbooyinka u dhashay ka soo jeedo jubbooyin hal qodobna waxaan weydiinayaa dawladdan weydiinayaa waa su'aal dawladda waxaan leeyahay guulayso madaxweyne guulaysaan ku leenahay maadaama Soomaalidu waxay tiraa hadalow maxaa tartaa wuxuu yiri nin dayoobayna dawga sidaan haleeshiya nin hurdadaan ka kiciya madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii wadadii xaqa ahayd ee dhabta ahayd aad maanta aqoonsatay garabkaagaan taaganahay allahumma dul umrak wa nawar qalbak waa kugu garab taaganahay adiga ra'iisul wasaarahaaga guulayso taas madaxweynahan leeyahay iyo xukuumaddiisa waxaan ku darayaa marka madaxweyne ruuxa hadduu hadal wax anfacayo waxa loo hadlo waa inuu ruuxu wax ku anfaco hadal xabadda waxa loo samaystay xal marka hadalku wax tari waayo in xabadda wax lagu xalliyo baa loo samaystay khubaradii samaysay saas ay u samaysay waxaan doonayaa marka rajiimka fadhiya magaalada Kismaayo 14 sano inta waa lala hadlayay isagu bareerihiisu uu cadaystay oo wuxuu yiraahdo meyd baan la soo galay meydna waa kaga baxaya adigu raggii taageeray baad ahayd madaxweyne ee barnaamijka ku taageeray laakiin maanta xigmad baa lagu socdaa iyo xukun eebaha ee xaqa u heeli adiga waqa xoog badnaan jiray tibi annagu marka waa garab taaganahay dawladda iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse maalin dhaweyd baan kula hadlay tallaabadii sharafta lahayd ee aan kula rabay waad qaaday dhamaystir waxaan la soconaa maanta in ra'iisul wasaaruhu jooga Nairobi Jermis Iswaal ninka la yiraahdo oo qaramada midoobay u jooga meeshan inuu wada hadal la bilaabay oo rajiimkii uu yiraahdo ila hadlo waa dabin ka digtoonaadaan leh waa uga sii degaynaa dawladda anu waxaan ku hadlayaa codka jubbooyinka dawladda intaasaan leh waxaan dawladda weydiinayaa oo su'aala mar labaad baan ku celinayaa dawladda waa garab taaganahay madaxweynaha anaga sharafta leh hor u socon ku leh waxaan dawladda weydiinayaa sharciga dawladda ama qaranku ku dhaqmo ma dad gaar oo qabtaa mise ummadda waa u simanta limaada axmed madoobe Kismaayo hadda inuu naga haysto sheeganayna war golihii baarlamaankii uu nagu haysta axmed madoobe waad arkaysay askartii iyo saraakiishii amniga sugaysay wuxuu shalay ku sameeyay rag waa arkaysay raggaasu sharciga ma qabta miyaa ma ilmo libaaxsan ka taabtaa mise dadka la simayeen dawladdan weydiinayaa taas hadda nin sarkaal dhaawac oo yaala isbitaalka nin baa ku tuntay wuxuuna kula tuntay golihii baarlamaanka dhexdiisa dawladdu inay nooga soo jawaabtaan rabnaa qodobka halkaas qodobka saddexaad hadalkii baa ila dheeraaday waxaa la yiri iimaan laawihii mar haddaad ogtahay asluub iyo wanaag inuusan ogolayn arxan laawihii ajashaada raba looma arxame saas ay 77 abwaaniintii Soomaaliya yaa samaysay heesta waxaan marka ku soo gabagabeynayaa dadka jubbooyinka degano maalin horena warka waani war dadka jubbooyinka degano dad fara badan baa tiin deegaanka idinka iskalo ilaahay idin makeeyay Allahu yaqsimu bayna al-ibaadi bil-'adl war maanta fursad baad haysataane
فرصة كفائدة أو أبيسدا مدح إذن كدوا مسكن دلاجة سنتي سكبت أنت هيكون يشم بقول أو كيلو جرام روحوا كله في طبع النوراني مقالك اسمها يتضرب بقول يلي سدح يطمر روح بقى يكود لي أحمد مدوب dad waxaan arkay Axmed Madoobe maanta lama hadli karale dayuusnimo hadaad qaadato ilaahayna ku gargaari maayo fursad baad maysataan maanta alwaqtu ka sayf in lam taqda fa innahu yaqda'ak waxaan leenahay meesha waxa ka jira aan u midowno hadii suldaan jiro hadii ugaas jiro aanu cidna ma salaamin dadka golaha meesha yimid waxaan ku hambaliyaynayaa shirka dadka noo soo agaasimay ha guuleystay war maanta fursad aan ka faa'iideysano jiirta qabna dhakadeedaan saarana hadaan ka faa'iideysan weyno مسكا دلاغا او idin saaraan doona wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aan jeclaan lahaa inaan xusuusiyo walaalkay siilaay Allahu naxariistay xukunkii waa ka tagay nin Muuse la yiraahdo yimid nin Ehra la yiraahdo haduu yimid farwala wuu tagay Abduwalina waa tagay Saciidkii koobaad baa tagay Saciidkii labaadna wuu joogaa عبد الكريم حسين قولد واتجي حاف واتجي قرقور اللي لا تشوقه علي عبد الله عصب لواتجي محمد عبد الوار واتجي علي قود لا من لا تشرا شريف حسن تك ولفتكر اللي لا تشوقه حسن شيخي هو واتجي فرماجة يميد واتجي حسن شيخي كلا تشوقه حلاه مركه هدان جوجل كوكردا قبل مويه كترين قراد إيوايا أرك إلا وأحمد آتي تجد